السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub isku soo noqod wanaagsan sidaan horeba u sheegnay isniinta waxa iska leh internetka teknolojiyada iyo waxyaabo markaasi digitalka ee dunida ku cusub in aanu ka warano okay muuqaalkan bal waxaan iskula fiirin doonaa iskula eegi doonaa aalad baryahan dhaweyd soo baxday oo ChatGPT la yiraahdo bilihii u dambeeyay aad loo hadalhay gaar ahaan Soomaalida iyo dunida oo idilba marka dad fara badan ayaa ka hadlay Soomaali fara badan ayaa ka hadashay qof bas ayuu uga hadlay qof fikradiisa ayuu ka dhiibtay bal muuqaalkan waxaan iskula fiirin doonaa iskula eegi doonaa xogaa waxyaabo ku saabsan aaladan ama mala'awalkan caqliga badan ee la soo saaray dhawaanahan soo dhawaada saaxiibayaal aaladan ChatGPT ama aan idhaahdo mala'awalka caqliga badan waa artificial intelligence weeyaan waa mala'awal caqli badan weeyaan waxyaabo fara badanna ku qabanaya halkan kaga waramayno ama kaga sheegayno ama kaga sheekeynayno waxyaabo ku saabsan taariikhdiisa xilliga la soo saaray cid iskale iyo waxyaabaha soo idil balse laakiin waxa aynu ka warami doonaa oo aynu ka sheekeyn doonaa waxyaabaha uu faa'iidada ku leeyahay gaar ahaan waliba innaka Soomaalihan ama dhalinyaradeenna uu faa'iidada u leeyahay ayaan halkan kaga hadli doonaa waxyaabo fara badan xaggan markaasi ku soo qaadan doonaa inkastoo ayna kaga geeyon karaan ma ayna ku dhameyn karaan ba waqti kooban bal xogaa dhowr qodob baa jiro aad iyo aad u muhiim ah faa'iido fara badanna ay ku jirto waxa jira 5 qodob oo aad u muhiim ah 5 qodob halkan ku wada sharax maayo balse kala qayb ayaan u dhigayaa oo maalinba qayb ayaan ka warrami doonaa qaybta aan ugu soo horeysiinay ama qodobka koobaad aan ugu soo horeysiinay waxa uu yahay horumarinta sameynta website-yada ama in aaladan ama maxaan ku dhahday mala'awalkan caqliga badan artificial intelligence ChatGPT loo yaqaano waxa uu ka saacidayaa in aad website sameyn karto oo isagu ku kood gareeyo sidoo kalena applications iyo waxyaabaha soo idil aad ku sameyn karto okay bal hadaba waxaanu eegi doonaa qaabka aad u adeegsan kartid adigoo oo raba inaad sameyso website-ka ama application-ka aad rabtid waxa jira waxyaabo fara badan oo ku qabanayo oo ka caawinayo oo markaasi aad kala hadli karto ugu horeyn mala'awalkan caqliga badani waxa uu ku base gareysan yahay kaliya waa text language yani wuxuu ku qorayaa malaha sawir wax muuqaala waxyaabaha soo idil ha ku sheegin kaliya uu ku qorayaa qoraalkaas bad markaasi ka faa'iideysan doonto qoraalka waxyaabo fara badan baad uga faa'iideysan doontaa inuu code ku qoro inuu xisaab kaaga shaqeeyo inuu warbixin ku siiyo inuu buuga ku sharaxo in maaragtay waxyaabaha soo idil ayuu markaasi faa'iido fara badan ugu leeyahay bal hadaba qaabkii ayaad markaasi ugu sameyn kartaa website adiga oo adeegsanaya aaladan caqliga badan ama mala'awalkan caqliga badan artificial intelligence-ga wax loo yaqaano Soomaalihan malahaas ma noqonaysa waan maleynaya mala'awal caqliga badan artificial intelligence oo saas ma maleynaya adigu hadii aad maaragtay fikrad kale u hayso ama kelmad kale Soomaali oo hayso oo nala wadaagi doontaa insha Allah tusaalahan kaba soo qaad waxaad rabtaa inaad guri sameysato inaad guri dhisato ayaad rabtaa gurigaasi ha noqdo mid xaafadaan aad u degayso ha noqdo mid ganacsi ha noqdo nooc doon ha noqdo mid weyn oo dabaq ha noqdo waxa qasab guriga dhisaso in ma ugu horeyn naqshad laga diyaariyo naqshada marka laga diyaariyo guriga naqshada la sawiro qaab qurux badan loo design gareeyo ayaa markaasi guriga la dhisi doona hadaba si aad waxa soo dhan u sameysato qof baad u tagi ama qolada wax naqshad gareysa guriga design gareysa ayaad u tagaysaa kadibna guriga la naqshadeynaya guri qurux badan baa lagu sameynaya guriga design-ka markaad ku qanacdo ayaad soo qaadanaysaa kuwa guriga dhisay aad la tagaysaa oranaysaa naqshada guriga waa tan la dhiso naqshadii baad soo qaadatay waxaad la timid kuwa guriga dhisay la dhiso baad tiri marka naqshadii aad soo sameysatay design-ka lagu sameeyay laga tixraacaya kadibna gurigiisaas baa lagu dhisaya mala'awalkan caqliga badan waa sidaas oo kale website ba soo design gareysanaysaa ama Adobe XD ku soo garay ama Figma ku soo design garay waxa doonto ku soo design gareyso website-kii baad soo design gareysanaysaa naqshadii baad soo dejinaysaa qaybtii header-ka header section-ki qaybta testimonial-ka qaybta news-ka maxaan ku dhahay footage-ki waxyaabaha soo idil baad soo sameysanaysaa qaab kasta qurux badan oo sameyn karto oo sameyn karta maadad qof la tagayso waxyaabaha soo idil naqshadii markaad soo dhameystirto baad soo qaadan waxaad u leeyahay mala'awalkan caqliga badan waa sida guriga la dhisayo kale mala'awalkan caqliga badan baad u leeyahay doontaa dabeetana waxa aad u sharaxaysaa u sheegaysaa naqshadii website-ka ka koobnaa naqshadii website-ka ka koobnaa ayaad u sheegaysaa u sharaxaysaa kadibna ala qayb ama qayb ayuu kugu kood garanaya koodkiiba kugu qoraya adoo koodkii wad qaadanaysaa koodka airbad koobisanaysaa bas waxaad markaasi halkii aad koodka ku sameysanayso mid geysanaysaa saas ayuu markaasi website kugu dhameystirmaya oo halkii waqti fara badan kaaga bixi lahaa ama maaragtay cilada ka iman lahayn ama in fara badan aad wixii raadin lahayd ayuu ka saacidayaa waqti fara badan baa ku save gareysmaya bal hadaba waxaan isla eegi doonaa in yar oo kamida in aan sharaxada ama tusaale ka siiyo in yar ugu horeysa ama halka aad ka bilaabi karto ayaynu isla eegaynaa si markaasi aad ugu sameyso website-kaaga bilowgiisa hadii aad
qaybta developingka ama web developerka ama qaybta samaynta applicationada waxyaabahaas oo idil haddii aad ku cusub tahay ama ay kugu yar adkaan jirtay ama waqti fara badan ay kaa qadan jirtay ama ay kugu dhib badnayd malaawalkan caqliga badani waa markaaga uu saacidaya bal waxaan isla eegi doonaa xogaa yar oo ku saabsan malaawalkan caqliga badan si yar uu inoogu sameeyo ama sidan koodhka uga soo qaadano koodhka inoogu qoro aynu isla eegnaa qaybta sare ee headerka oo loogadii qaybtii nav barkas ku wada jiraan waxaasoo dhan iyo colorkii backgroundkii taas ku wada jirto aynu ka odhananaa samee balse uu sameeyno isla eegnaa saaxiibayaal bal aan isla eegna markaas waxaan soo furi doonaa browser kamid ah browserradayda ayaan soo furanayaa adigu ka doonto waad isticmaali kartaa okay bal waxaan halkan markaasi isku eegaynaa qaabka markaasi uu shaqeynayo okay horta marka ugu horeysa in yaraan kuu sheego haddii aad rabto ChatGPT na samaysato oo aad Soomaaliya joogto kuguma shaqeynayo sababtoo lambar buu kaaga baahan yahay lambarkaasina waa inuu noqdo lambar ka baxsan wadamadeena oo noqdo wadamada uu ku shaqeynayo xataa haddii aad isku daydo lambar malaawal inaad ku agto isaga malaawal caqli badan marka kama yeelayo inaad lambar fake ama been aad ku samaystiraado sidoo kale lambar Soomaaliya kama yeelayo wadamadeena malaha jaarka iyo meelahana kama yeelayo marka waxa ugu mudan ama ugu dhow inaad hesho qof ehelkaaga ama asxaabtaada ama dad istaqaanaan saaxiibayiin oo banaanka ama dibadda jooga wadamada uu ka shaqeynayo kadib koodhka ayaad dirsan doonto koodhka ayuu kuu soo sheegi markaas baad koodhka halka gashanaysaa saas baad insha Allah sameyn doontaa laakiin isku xiijinin haddii aadan haysanin qof koodhka kuu soo qoro sababtoo ah kama yeelayo inaad lambar kale aad ku samaysato sidoo kale marka aad samaysatay lambarka ku samaysatana waxa kaaga baahanayaa virtual private network wax loo yaqaano ama VPN oo si aad u bedesho IP addresskaaga wadamada uu ku shaqeynayo saas baad markaasi u adeegsan doonto okay qaabkan ayuu soo baxayaa waxaan ku qorayaa ii samee ama waxaan weydiinayaa inuu ii sameeyo qaybta headerka website-ka inta yara sare weeyaan waa leadka sare loogada iyo qaybta adeegyada service-ka about-ka waxyaabahaas ay ku wada qoran yihiin ay header leedahay qaybtan samee koodhana okay haddii aad Soomaali kula hadlayso tiraahdo waxaa macquula in uu si fiican uu kugu jawaabi waayo Soomaali uu kula hadlayaa laakiin waqti ama mararka qaar in si fiican uu jawaabihiisa ay ku deeqi waayeen ayaa macquula marka waxa ku wanaagsan malaha luqadda Ingiriisiga inaad ku weydiiso iyo luqada kale sababtoo ah wax waliba luqadda ku soo bixi wanaagsan adoo luqadda ku dhalatay waa Soomaali luqadda lagaga warramay waa native aad ku tahay isagana luqadda lagu sameeyay waxa weeyaan English marka taa kula sheekayso haddii aad Soomaali kula hadlayso waxa macquula in jawaabaha qaar ka qaldan meelaha qaarkoodna oo ka xumeeyo marka labadaba waan isku dayi doonaa inaan kula hadlo insha Allah waxaan weydiinayaa inuu sameeyo qaybta headerka waa ChatGPT weyn oo malaawalka caqliga badna balse uu inoola afkartayn in eegi doona insha Allah okay halkan baan ku qori doonaa create web header background color kadibna size 100 pixel baan ka dhigay kadibna enter baan leeyahay qaabka bal uu jawaabay qaabka wuxuu qorayaa horta marka ugu horeysa ku cajabinaysa koodhkii uu jirto bilaabay HTML iyo CSS ayuu ku koodh garanaya koodhka ayuu ku qorayaa kadibna koodhka ayaad koobiyeysanaysaa meesha aad ku sameysanaysay baad ku koobiyeysanaysaa kadibna saas baad website-kaaga la fogo dhigi doontaa xogaa in yar waqtigeena ka qaadato laga yaabaa balse laakiin wax fara badan ayuu waqti fara badan ayuu ku save garanaya hadda uu sameeyay isla markiiba uu dhameystiray qaybtii sare copy koodh baad odhanaysaa markaasi koodhka ayaad koobiyeysanaysaa koodhka markaad koobiyeysato waxa koodhka markaad koobiyeysato waxa aad soo furan doontaa markaasi meesha aad ku sameynaysay koodhkaaga hadda waxaan soo furayaa Visual Studio ayaan soo furayaa kadibna waxaad iska soo sameysanaysaa qaybtii index.html-ka qaybtii bilowgiisii iyo CSS-ki folder-kii baad soo sameysanaysaa kadibna waxaad ku soo ridanaysaa loogadaadii haddii aad sawiray waxa ku darsanayso waxyaabahaas oo idil ayaad markaasi ku dhex ridan doontaa dabadeetana koodhkii aan soo koobiyey aan halkan paste ku siinayaa control V baan ku dhufanayaa kadibna waan paste gareeyay imika waa headerkii oo kaliya kadibna markaasi save ayaan leeyahay save markaan idhaahdo go live baan odhan doonaa qaabka markaasi bal u sii daaya in eegana hadda uu inoo save gareeyay folderkii CSS iyo labadiiba dhankan bay markaasi igu jiraan okay imika intaas buu inoo sameeyay kadibna hadda wuxuu inoo bilaabaya inuu sii daayo inoo sii daayo waka qaybtii headerka saas buu ku sameeyay colorkii aan doortay cabirkii aan doortay iyo intiiba kadibna hadda waxaan odhanaynaa markaasi looga noogu dar information kalena noogu dar baan ku odhanaynaa aaladan ama malaawalkan caqliga badan okay qaybta halkaas uu ku koobiyay kadibna hadda waxaan odhanayaa now add logo as the corner sida aad kolba u qoran karto weeyaan then next to
waxaan kusoo xigsiinayaa nav barka oo qaybta service waxa soo qaybta navigation ku xigsiinayaa waxaan oranayaa saas baan qori ama qaws baan gelin doonaa waxaan oran services adu wixii aad doonto ka gashan kartaa waa sample ahaan weeyaan tani kadibna waxaan kusoo xigsiinayaa about kadibna waxaan kusoo xigsiinayaa career kadibna waxaan kusoo xigsiinayaa contact way waan soo xidhayaa okay haddana enter baan siinayaa sida loogu daro daawo adu waxa warba cad mal awalkan aqliga badan laga fajacay oo laga yaabay laakiin faa'iido fara badan buu leeyahay waqti fara badan buu ku save garanaya kanoo kaliya tamaha website buu ku sameyn kartaa maxaan ku dhahay application buu ku sameyn kartaa waxyaabo kale fara badan buu ka saacidi karaa qaabka uu koor garanaya markaaba daqiiqada gudahood ayaa lagu sameynaya wixii waqti fara badan ka qaadanayay okay bal hadda inuu dhameeyo markuu dhameeyo ayaan isla eegnaa soo wax yiraahdo imika loogadii buu ku daraya kadibna wuxuu ku darayaa qaybtii nav barka buu ku darayaa kadibna waxa uu sameeynaya inuu meeshii halkii aynu doorano inuu dictionary inuu noo dhigo okay hadda waa dhammaystiray code-kii waan soo copy gareynaya markaa hadda ilaa intii hore ku daray markasta waxay noqonaysaa in aad inta soo copysto kadibna aad ku paste gareyso halkii hore code waan soo copyinaya code-ka kadibna waxaan imanayaa qaybtii Visual Studio qaybta style-kan markaas soo qabanaya buriga wadaysanaysaa maadaama uu yahay qaybtii aad rabtay inaad markaas ku dhex paste gareyso kadibna waxaan leeyahay waan masaxay qaybtan paste baan leeyahay kadibna waxaan sii deynayaa control s oo save gareynaya okay waxa intii aan dooranay ayuu soo daray hadaba loogada meesha ka maqan tahay si aan loogada ugu soo darna markaa waxa aan sameeynaa waxaad gashan doontaa qaybtan aad sawirkaaga markaas ku bedeli doontaa aan ku tuso halkan ma aragtaa SRC qaybta ku xirantay looga ay ku qoran tahay ayaad halkan markaas gelin doontaa sawirka ugu qoran loogadaada magaca ku qoran masalka gelinaysa aniga waxa ku qoran magacayga barkhad.png ma gelin hadii folder ku jiro isla markaa uu ku soo qabanaya kadibna control s baan ku dhufanayaa isla markaaba serverka qaybtan ayuu kaaga sii deynayaa hadda loogadii u yareeyay cabirka in waxay noqonaysaa inaad cabirka leekaysiisto meesha aad ku qorato loogadii hadda uu yareeyay xataa fontiga dooranaysaa farta qoraalkeeda qaabka waa kan ayaa dooranaysaa marka kan hadda waa tusaale ahaan oo kale waqti fara badan naga qaadan mayso balse laakiin maxaan ku dhahdaa ay saas oo kale ayaad sameyn kartaa qaabka aynu marnay oo kale ayaad u mari kartaa sidaas baanad website-ka ku bilaabi kartaa koodkii aad qori lahayd waqtiga fara badan kaaga bixi lahaa ayaad daqiiqada gudahood ku sameysanaysaa waa cajiib waay saaxiibayaal bal muuqaalkani halka ay noogu joogo insha Allah halkaasaan ku soo gabagabeyn doonaa hadii la haydmo insha Allah waxaan rajeynayaa inaad markaasi muuqaalkan aad ka faa'iiday wax fara badan markaasi uu ku soo kordhiyay oo isla hayd halkaad wax ka bilowdaa ama halkeed markaasi wax ka soo eegtaa hadii aad nagu cusub tahay oo tahay markii ugu horeysay channelka soo booqatay fadlan like subscribe iyo share inta midnaha ka iloobin soo dad fara badan soo gaadho oo uga faa'iideystaan inta tan muuqaalka dambe soo iman doono khayr baan idinkaga tagayaa iyo sidaa iyo nabadgelyo